waxaa muhiim ah inaa ogaataan indhaha dadka Soomaaliyeed waayahan oo dhan waxay haayeen Galmudug sababtu waxay tahay dadka Galmudug meel walba oo kamid ah oo isku soo baxeen waxay u soo jeesteen inay dawlad cusub dhistaan dawlad goboleed cusub waxay aqbaleen inay hubka iska dhigaan ama dawlad u dhiibtaan waxay aqbaleen inay ciidanka ku biiraan waxaa muuqda tanaasul badan oo la isu tanaasulayo tanaasulkaas isaga ah laakiin waxaa ka mira dhalin kara waa dadkiina ah hay'adaha amniga maadaama dad badan ay halkan isugu imaanayaan kalsoonida ugu horeysa waxay tahay horta in amniga laga shaqeeyo amniga magaaladan dadkii joogay si wanaagsan bay uga shaqeeyeen waana ku amaanan yihiin waana in laga bartaa laakiin dadkii magaaladan imaan jiray dad aad uga badanaa imaan doona magaaladan xiisihii loo qabay boqol jibaar maaya aragtida laga qabo si kale ay noqonaysaa baahida loo qabana si kale ay noqonaysaa waxaan u baahannahay marka sabuuradii looga soo shaqeeyay qorshihii hore in dib loogu noqdo mid cusub lagu soo qoro kaasoo kulligeen aan wada fahamsannahay arrinka labaad waxay tahay ciidamadiina halkan jooga kulligiin waxaad tihiin ciidamada federaalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku soo celiyo mar labaad ma kala lehidina ciidamo hore iyo ciidamo dambe kulligiin hadda waxaad tihiin ciidamada federaalka Soomaaliyeed oo isgarab fadhiya iska garab dagaalamaya is ilaalinaya shaaha iyo biyaha kala qaybsanaya iska fiirinaya cadowga idinkoo isla jira nafta is siinaya marka horta waa inaan aqbalnaa inaad tihiin ciidan Soomaaliyeed kulligiin midda labaad idinkoo hadda isu yimid marka aan fiirino shaqadan hortaal baaxadda ay leedahay waxay tusaale ka tahay sida aadan u kala maarmina innakoo isu nimid oo ciidankeenni mid uu noqday ayaa haddana baahida shaqo oo horteenna taalla baaxadda ay la eg tahay marka aan fiirino ayaa waxaa muuqanaysa saacado badan iyo maalmo badan iyo habeenno badan inay khasab tahay inaan soo jeedno si aan uga adkaanno kuwa raba inay dhibaateeyaan gobolka haddii marka shaki uu nooga jiray muhiimadda midnimada ay leedahay shirkaanaa daliilu ah kulligiin ama boolis ahaw ama nabad sugid ahaw ama military ahaw waxaad rabtaa inaad dalkaada difaacdo idinka dawlad goboleedka aad dadkiisa matalaysaan ciidanna u ahaadeen ayaa meelo badan oo ka mid ah cadow haystaa oo macnaheedu waxay tahay wiilasha iyo gabdhaha meelahaas ku koraaya mustaqbalkooda inuu mustaqbal fiican oo iftiimaayo noqdo idinkaa ka mas-uul saacad idinkama lumi karta marka ma iskhilaafi kartaan dulqaad la'aan ma ahaan kartaan dantiina keliya kama fikiri kartaan go'aanka aad gaartaan wuxuu saameynayaa dad walaalihiina waxaan ku faraxsanahay caawa inaan isu nimid shirkan idinkala soo qayb galay waxaan rabnaa dawladda federaalkuna inay maamulkan ka barato wax walba ay ka baran karto maamulkuna uu ka barto dawladda federaalka waxaan rabnaa inaan u sii dhammaystirno qorshe dawladda laga dhisi goboleedka halkan laga dhisi doono si marka loo aasa dhidibada aanay kow uga bilaabin balse aan u hayno qorshihii amniga magaalada gobolka degmooyinka tuulooyinka qorshihii dib u xareynta iyo daryeelka ciidanka inaan shaqada dedejinno waa muhiim tan labaad waxaa ku guulaysateen ama dawladdii federaalka iyo dawlad maamulka Galmudug ay ku guulaysteen in la midoobo la isu yimaado la wada shaqeeyo dadka loo adeego dadka si aan u kasbanno marka waa inaan leenahay waxaan ku kasbanno waxa ugu fiican oo marka aan samayn karno maadaama aan ciidan tihiin waxay tahay inaan dhulka dib u xoreyno sida ugu dhaqsaaqay
haddii awal la kala maqnaa oo cudurdaarku ahaa in la kala maqnaa cudurdaarkaas isaga ahaa wuu soo afjarmay waa la isu yimid ciidanku waxay shacabka uga duwan yihiin waa nidaamka iyo kala dambeynta amniga dowlad goboleedka xasiloonida horumarka dib u xoreynta ka ilaalinta cadow gudo iyo mid dabadeed idinkaa ka mas-uula ilaahay idinla garab galo shaqadiina